دكتور عمر عبد الرحمن معاوية oo ah dhakhtar ku takhasusay cudur daweynta iyo dabiibista cudurrada guud kana howlgala dhakhtarka Mucaawiye ayaa maanta mar waraysi gaarsiiyay barta fogaan aragga xorta ee Buraale Media Brown talooyin caafimaad oo wacyigelineed la wadaagay bulshadiisa reer Soomaaliland. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Horta xanuunkan wuxuu nagu jiray labadii bilood ee u dambeeyay ilaa bishii saddexaad baa imika la gelaya. Xanuunku markii hore dhibtiisu aad bay u fara badnayd oo dadka waliba caasimada Hargeysa dhib fara badan buu ku hayay oo dadka qaarkood ay u dhinteen baa jiray marka imika Hargeysa hoos buu soo dhacaya gobolkan Borodisheekh aad bay hoos u dhacaysaa imika bishan u dambeysay waliba labadii wiiga u dambeeyay dadka noo imanaya aad bay hoos ugu soo dhaceen marka xanuunkan dhib fara badan buu ku keenay dadkii bulshadeennii iyadoo wacyigelinteeduna waliba aad u sii yareyd inkastoo ay wasaaradda caafimaadku ka qayb qaadato wacyigelin fara badan ay sameysay oo dhakhaatiirtana ay guideline raacnaha noo sameysay oo dadka lagu daweynayay haddana dhibtiisa way iska fara badnayd oo dadku xanuunkan hore uma aqoonin waa xanuun inagu cusub oo inooga yimid wadamadan jaarka ah sida badan waliba wadamadan Aasiya Hindiya oo kale aad ugu dhaca iyo Bangladesh iyo Pakistan oo kale marka dadkeenu inta badan bariyaha ku aad u tagi jiray wadamadan jaarka wadamada sida caafimaad ahaan iyo ganacsi iyo waxba lagu tagi jiray marka dad baa ka soo qaaday xanuunkaas oo wadanka keenay saasoo xanuunkan ku fiday wadanka ku fiday waxaana faafinaysa xanuunkan factorka faafinaya waa kaneecadan guriyaha inoo joogta dadka habeenkii iyo maalintiiba cunaysa marka taasaa faafinaysa qofkii xanuunka qof bay ka soo qaadaysaa qof xanuunkii qaba ka soo qaadaysa qof kale caafimaad qaba markii qaniito saasoo xanuunka ku qaadaya qofka xanuunka laguma kala qaadayo istaabasho neefsasho laguma kala qaadayo marka waxa kaliya ee lagu kala qaadaya waa kaneecadaas oo qaniito qofkii qabay oo ku talaalaysa qof caafimaad qaba marka sababta kaliya lagu hortagi karaana waxa weeyaan in xanuunkan kaneecadan la yareeyo meelaha ay ku badan tahay sida meelaha biyo fadhiisiga meelaha guryaha ay biyuhu fadhiistaan meelaha qashinada ah in nadaafada aad loogu dadaalo meelaha la buufiyo guryaha meelaha bilaacadaha in la buufiyo markay kaneecadaas yaraato xanuunkana hoos u dhacaya waayo imika waynu arkaynaa qabowgii baa soo galay labada wiiga u dambeeyay xanuunka aad buu hoos ugu dhacayay waxaa jiray imika xanuuno kale oo raacay dadka xilligan waliba seasonalka oo xanuunadii duriga oo kale iyo ooft oo kale iyo ayaa imika soo raacay marka dhibta badan waxay ku taagan tahay imika dadkeeni waxaa qaateen xanuunkan xamad kasta oo qofkii ku dhacdo haddii duri tahay hadday xumad oof tahay ama pneumonia tahay xanuuno fara badan xanuunkan xumaduna waa calaamaduna maaha waa calaamad lagu garto xanuunada weeyaan xumada lafteedu maaha xanuun laakiin waa calaamad weeyaan xanuuno badan baa marka xamudan keenaya oo in infection kasto jirka ku dhaca xumad buu keenaya durigan imika jira magaalada ee muxuu ahaaye seasonalka la socda dadka pneumonia ooft waxyaalo badan baa keenaya xumadii dadkeenina waxay ku qufulmay in xumadii hay jirto ta kale talabaad khalad kala jiro dadkeena qaateen dawooyinkiiba lagu xanuunsanaya ama dawooyinkiiba dhib keensanaya marka dadka imika waliba gobolada oo kale goboladan Gabiley oo kale imika Burco oo kale Cergaabo goboladaas imika xumadu ku yar badantay ku cusubtahay waliba intii hore aanay jirin dhibta laga soo sheegaya waxa weeyaan dadkii dawadii way ka baqayaan ma qaadanayaan waxay leeyihiin dawadii baa waxna yeelaysa oo dad badan baa guryaha ku xanuunsanaya oo guryaha jiifa paracetamol aba liqay amba wax kale aan dawo wala liqaynba markaas taasina in wacyigelin badan loo sameeyo u baahanta loo sheego xanuunkan haddii aan malaha horta xanuunka virus baa keenaya viruskana dawo malaha isagoo kaxaynaya malaha laakiin calaamadahan uu keenayo matagii xumadii shubankii fuuqbixii wixii in laga daweeyay weeyaan qofka dawo loo siiyo oo fuuqbixii laga ilaaliyo xumada laga dejiyo calaamadihii kale uu keenayna laga daweeyo marka xanuunada dhibta keensatay waxa weeyaan dadkeeni oo marka xaggan wacyigelinta ku xumaatay oo amba waxyaalahan kale tufaysiyay buuga lagu soo qoraya amba meelaha lagu soo qorqoraya ay dadkeeni wada qaateen dadkeena waxay iska wada noqdeen waxa la wada haystaa baalaha yar ee mobiladaas la haystaa informationada halkaas ka helayaan mararka qaarkood information khaldan baa la soo gelinaya oo la leeyahay dawooyinkii baa wax yeelaya imika wasaaradda caafimaadka waxay soo gelisay imika guideline baa la isticmaalaa baa jirta guideline kaas dawooyinka la isticmaalayo
qofkii hadduu xumad leeyahay waa in xumadii laga jabiyaa paracetamol la siiyaa amba tii irbada hayada lagu xidhayay amba tii muxuu ahaaye kiniinkii la siinay waa in xumadii laga jabiyaa xumadii haddii loo daayo qofka waxba yeelaysaa qofku fuuqbax buu keenaya fuuqbixii waa in laga daweeyaa falaba iyo wax lagu xidhaa oo laga dejiyaa qofkii mararka qaarkood dhiig bax buu keenayaa oo xumadii waxay isku bedelaysaa mararka qaarkood dadka qaarkood 20kii qofba hal qof bay ku sameynaysaa inuu qofku calaamad complication dheeraado khatar ay keento oo waliba hemorrhagic fever ay ku keento qofku dhiig u ka yimaado sanka afka meelaha qaarkood dabada xilliyada caadada kale sii kordhiyo marka taasi waa stageka u dambeeya haddii aan laga daweynin oo qofkii aan hadduu dhiig u baahdana aan lagu shubin haddii kalena dee dhakhtarku la xidhiidho xaaladeeda lala socon qofkaasi khatar buu gelayaa dadka sababahan dadka qaarkood waa tan dhimashaduna imika jirto waxyaalaha ugu badan keenaya waxay qofka markuu guriga amba iska joogo amba dawo fiican aan u qaadanin waxay keenaysaa xumadii Dr. Cumar Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa sidoo kale bulshaweyntiisa reer Soomaaliland ugu baaqay inaanay dheg u dhigin hadallada waxyeeleynaya ee bigsal iyo raadka lahayn ee kutri ku teenta ay shakhsiyaadaan iyagu caafimaadka aqoon u lahayn ku baahinayaan baraha ay bulshadu ku kulanto ee waxyeeleynaya buu yiri bahda caafimaadka dalka iyo wasaaradda qaranka u qaabilsan horumarinta caafimaadka arrimaha isagoo ka hadlayana wuxuu yiri Dr. Cumar xanuunada dhibta keensatay waxa weeyaan dadkeeni oo markaa xaggan wacyigelinta ku xumaatay oo amba waxyaalahan kala tusaysiya buuga lagu soo qoriya amba meelaha lagu soo qorqoriya ay dadkeeni wada qaateen dadkeeni waxay iska wada noqdeen waxa la wada haystaa baalaha yar ee mobiladaas la haystaa informationada ka ka helayaan mararka qaarkood information khaldan baa la soo gelinaya oo la leeyahay dawooyinkii baa wax yeelaya imika wasaaradda caafimaadka waxay soo gelisay imika guideline baa la isticmaalaa baa jirta guideline-kaas dawooyinka la isticmaalayo qofkii hadduu xumad leeyahay waa in xumadii laga jabiyaa paracetamol la siiyaa amba tii irbada hayada lagu xidhayay amba tii muxuu ahaaye kiniinkii la siinay waa in xumadii laga jabiyaa xumadii haddii loo daayo qofka waxba yeelaysaa qofku fuuqbax buu keenaya fuuqbixii waa in laga daweeyaa falaba iyo wax lagu xidhaa oo laga dejiyaa qofkii mararka qaarkood dhiig bax buu keenayaa oo xumadii waxay isku bedelaysaa mararka qaarkood dadka qaarkood 20kii qofba hal qof bay ku sameynaysaa inuu qofku calaamad complication dheeraado khatar ay keento oo waliba hemorrhagic fever ay ku keento qofku dhiig u ka yimaado sanka afka meelaha qaarkood dabada xilliyada caadada kale sii kordhiyo marka taasi waa stageka u dambeeya haddii aan laga daweynin oo qofkii aan hadduu dhiig u baahdana aan lagu shubin haddii kalena dee dhakhtarku la xidhiidho xaaladeeda lala socon qofkaasi khatar buu gelayaa dadka sababahan dadka qaarkood waa tan dhimashaduna imika jirto waxyaalaha ugu badan keenaya waxay qofka markuu guriga amba iska joogo amba dawo fiican aan u qaadanin waxay keenaysaa xumadii